Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waad salaamantihiin asxaabta ku soo dhowaada shanalka Abitey. Maanta waxaan ka hadli doonaa war maalmahan la soo dhaafay ku jiray warbaahinta maxalliga iyo caalamka, kaas oo ah rabitaanka xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee rabto in ay ku biirto isku taga mujtamacadka Bariga Afrika ama East African Community. Anagoo maanka ku hayna in aysan ahayn markii ugu horeysay ee ay dowladda Soomaaliya isku daydo inay ku biirto East African Community. Mujtamacadka Bariga Afrika waxay ka kooban yihiin 7 wadamo, kuwaas oo ah Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan iyo Congo. Inta aan isweydiin in ku biirista mujtamacadka Bariga Afrika dan ugu jirto Soomaaliya, waxaan u baahanahay inaan isweydiino sababta loo sameeyey iyo maxay tahay fikradda ka dambaysa. Sababta ay wadamadani u doorteen in ay sameeyaan isbahaysigan inkasta oo Midowga Afrika uu hore u jiray. Si aan su'aashaas uga jawaabno, waxaynu u baahannahay in aynu eegno taariikhda dalalkan iyo waxa ay ku kala duwan yihiin iyaga iyo dalalka kale ee jaarka ah sida Soomaaliya iyo Itoobiya. Mujtamacadka Bariga Afrika ama East African Community waxaa markii ugu horeysay la aas-aasay 1967, waxaana aasaasay Kenya, Tanzania iyo Uganda. Isbahaysigani wuxuu shaqeeyey 10 sano ilaa 1977, markaas oo uu burburay. Burburkii isbahaysiga 2 sababood ayaa ugu waaweynaa. Xiisadda ugu weyn ayaa waxaa sabab u ahaa Idi Amin inqilaabkii militari oo ku afgambiyey madaxweynihii la doortay ee Uganda, Milton Obote, sanadkii 1971. Obote waxa uu gabaad ka dhigtay Tanzania, halkaas oo uu qorsheynayay in uu ku soo laabto xukunka Uganda isagoo kaashanaya madaxweynaha Tanzania Nyerere. Idi Amin waxa uu ku hanjabay in uu dhul ka qabsanayo 2 dal ee kale ee xubnaha ka ah East African Community, Tanzania iyo Kenya, haddii ay soo celin waayaan Obote. Halkaasna uu xiriirkii Kenya iyo Tanzania kala dhexeeya Uganda oo joogsaday. Sababta labaad ee burburka isbahaysiga ayaa ah tartankii u dhexeeyey Kenya oo ahayd capitalist iyo Tanzania oo ahayd qaabka hantiwadaaga ma aysan shaqayn karin sababtoo ah dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Ruushka. Quwadahaas waaweyn ma aysan ka dhex arkin dantooda in Kenya iyo Tanzania ay sameeyaan isbahaysiga East African Community. Asaaskii labaad ee mujtamacadka Bariga Afrika ama East African Community waxay ahayd shir madaxeed lagu qabtay Arusha ee Tanzania 30 Noofembar 1999. Wadamadan ayaa ku soo noqnoqda isku dayga inay samaystaan isbahaysigan sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo kulmiya wadamadan, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa ah qodobka koowaad: dadka ugu badan ee ku nool wadamadan oo dhan waa qowmiyadda Bantuga. Qodobka labaad waa luqadda, oo dalalkani ku wada hadlaan luqadda Sawaaxiliga oo ah luqadda koowaad ama labaad dal kasta. Qodobka saddexaad waa diinta. Sidaan ognahay, wadamadani waa wadamo diinta Masiixigu ku badan tahay. Qodobka ugu dambeeya waa ayagoo iska dhaxarkay in dantooda ku jirto in ay midoobaan. Ujeeddada loo aasaasay mujtamacadka Bariga Afrika waa tallaabo lagu dhisayo East African Federaalka iyo mideynta dalalkan. East African Federaalka wuxuu noqonayaa hal dal oo leh hal ciidan, madaxweyne, dastuur iyo calan ay ku nool yihiin 300 milyan oo muwaadiniin ah.
Soomaali waxay isku dayday inay ku biirto isbahaysigan 2012 markii uu Xasan Sheikh ahaa madaxweyne. Haddana 2022 Soomaaliya ayaa mar kale isku dayaysa inay ku biirto. Ma jiro madaxweyne ama ra'iisul wasaare kale oo arrintan hore iskugu dayay. Waxaan filayaa inaan isla gaadhnay qanaacad isku mid ah kadib markii aan ka wada hadalnay taariikhda, ujeeddada aasaaska, iyo mustaqbalka mujtamacadka Bariga Afrika ama East African Community. Go'aankasna waa in aydani ugu jirin Soomaaliya inay ku biirto isbahaysigan, balse oo khatar ku yahay jiritaanka dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeed haddii ay ku biirto. Gunaanadka labada su'aalood ee mudan in aan isweydiino kow ayaa ah sababta uu madaxweyne Xasan Sheikh u tagay East African Community ka hor inta uusan soo dhisin dowladdiisa. Su'aasha kale waxay tahay madaxweyne Xasan Sheikh ma wuxuu arkaa dan gaar ah ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista isbahaysigan, dantaasoo aynan arkin madaxweynayaashii hore iyo dowladahoodii laga bilaabo dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliyeed xornimada kadib ilaa dowladda madaxweyne Farmaajo, mise waxaa jira dano gaar ah oo isaga ugu jira in uu Soomaaliya ku daro isbahaysigan? Jawaabta labadan su'aalood waxaan u dhaafayaa shacabka Soomaaliyeed.